dhacdooyinka waa barnaamij aad looga faalloodo arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo wararka iyo warbixinada degdega ah ee markaasi ku soo kordha xaaladda Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika. barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka waa barnaamij ay ka qayb qaataan rugcadaha siyaasadeed iyo weliba aqoon-yahano ku xeel dheer xaaladaha markaasi laga hadlayo. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa dhexe ee magaalada London. barnaamijka daawadayaal guud ahaantiis waxaynu kusoo qaadan doonaa arrimaha ay ka mid yihiin heshiiskii dhowaan ay gaareen dowladda dhexe ee wadanka Soomaaliya iyo maamulka kumeel gaarka ee Juba oo ka dhacay magaalada Kismaayo kadib markii maalnimadii shalay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo hogaamiyaha maamulka Juba Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe ay shir jaraa'id ay qabteen ku sheegeen in ay ku heshiiyeen waxyaabihii lagu kala aragti duwanaa isla markaana shirka ka dhici doona magaalada Muqdisho ay ka qayb galayaan. haddaba heshiiskaasi waxa uu soo maray nidaam dheer, waxaa jiray khilaafaad ka dambeeyay oo labada dhinac warbaahinta ay markaa ku sheegeen kadib markii ay dowladdu tiri waa in maamulka Juba uu yimaada magaalada Muqdisho. hadda ayay ogolaadeen maamulka Juba inay ka qayb galaan barnaamijka. haddaba waxaa igala qayb galaya la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan uga mahad celinayno aqbalaada oo naga aqbalay inuu stuudiyaha noogu yimaado. waxaa kale oo khadka taleefanka magaalada Kismaayo uga qayb galaya hogaamiye madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland waa Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. haddaba oo isagu wax ka saxeexay heshiiskii lagu gaaray magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia. haddaba daawadayaal waxaan rabaa in aan marka hore bal wax inoo sharaxo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ku sugan magaalada Kismaayo bal heshiiskani iyo qaabka uu ku yimid. haye Cabdullaahi. bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa idaacadda Somali Channel. waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed inkastoo naga dhegeysanayaan. waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan u salaamayo. horta noqdo su-aashaad i weydiisay jawaabteedu wax badan oo xasan cabdo idaacadaha ay qaldaan baa jiro, wax badan oo website-yada ay qoraan baa jiro. horta annaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiiskii Addis Ababa wixii ka dambeeyay wax khilaaf ah iyo wax mugdi oo soo dhexmaray midna ma lahan. dadka hadalka si rabaan bay iska dhigtaan ama hadalka waa la badbadiyaa si la rabo loo badbadiyaa. laakiin waxaan caawa dadweynaha Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aan u sheegayaa in annaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaa la yidhahdaa wax khilaaf ah oo na dhexmaray aana jirin. heshiiskii Addis Ababa wixii ka dambeeyay oo dowladda Soomaaliya ee federaalka ah iyo maamul goboleedka Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland hadda si raba loo dhigee ay ku heshiiyeen kabacdi wax khilaaf ah oo na dhexmaray ama wax madmadow oo na dhexmaray si jirin. laakiin heshiiskaa shalay dhacay ee wasiirka arrimaha gudaha iyo waftiguu hogaaminayay oo uu ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Cabdiraxmaan Dheere iyo rag kaleeto mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen ay noogu maxaa la yidhahdaa madaxweynaha Jubbaland iyo wasiirka arrimaha gudaha ay war-saxaafada soo saareen. macnaheedu ma ahan xamar taga iyo ma tegayna ma ahayn waxa la isku haystay. waxa weeye wixii ka soo baxay Addis Ababa go-aanadii ku qornaa markii hore muxuu ahaa communique-ga iyo waxaa ku qornaa 2 usbuuc gudahood inaan xamar tagno. innaga xamar waa tagnay dowladda iyada, laakiin waxay u qaadatay tegitaanka xamar salaan iyo mataqaanaa iyo maxaa la jiray iyo isfahan iyo is-aamin koowaad bay u qaadatay. innaguna waxaan u qaadanay in marka hore tegidda aan tagnay ay ahayd qodobka ku qornaa maxaa la yidhahdaa communique-ga kasoo baxay 2 usbuuc inaan tagno. kabacdina shirweynihii uu ka dhaco magaalada Kismaayo oo ahayd meesha khilaafka uu ka dhacay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Jubbaland ay ku heshiinaysay. isfahamada jirka dhacay si ayada ahaydna markii wasiirka arrimaha gudaha noo yimid, markii aan wadahadal dheer sameynay, markii aan meelo badan ka fiirinay
annagoo xagga iyo xaggaba dowladda federaalka ah haddaan nahay iyo dowlad goboleedka jubbaland haddaan nahayba heshiiska jubbaland inuusan naga beerdaroobin heshiiska jubbaland iyo dowladda federaalka ee Addis Ababa ka dhacay inuusan naga beerdaroobin annagoo raadinayno waa tahay Cabdullaahi ya waxaan isla qaadanay ama isla garanay in 3 beri la tago meesha la yiraahdo Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa dadkii muxuu ahaa rajabooyinka ahaa isla markaa shirki weynaa iyo dibushiinta wuxuu Allah ta'ala marka dadkii aan si kale loo kala fasirinay waxyaalaha waa islaam laayir bay ahayd tiina waa islaam waa tahay Cabdullaahi fartaag waxaan ku weydiinayaa horta khilaafaadka inta badan waxa sheegi jiray waxay ahaayeen maamulka Jubba ee aad adigu madaxweyne ku-xigeenka ka ahayd waxaana muuqata in inta badan xitaa aad celiseen saraakiil ka tirsan dowladda dhexe waddanka Soomaaliya idaacadahana aad ka hadasheen oo aad waliba sheegteen inaadnan tagaynin magaalada Muqdisho marka khilaafaadkaasi ma jiriyo maxaad u leedahay waaba soo bandhigteen خلافات يستعمل هذا كلين خلاف بس كلا تجمع لنا هو خلافين أما كلا بوعي النجا الدولة الفدرال كأه صار هوري كوشة هذا أنا حبينا يب أدس أول وجه كتب بي وناد موري وحماتنا ونحمرين مرج جيران وأحمد مدون ونحمري أفضل تكسعنا دولة هذه هلا ملاحظ وصل سرسو هذه هلا رجل زارياش محل جري وزيرة ملحونها حرير توس هنا الله هاين خلاف إن ما نحمرين لكن السواير واتاي عبد الله واتاي شركه واتقني شركه عصر ويدا شركه واتقني محل هذا حمر كي اكسفاير دمن يما انا كي هرما انا مid ka hal yimaado oo dawladda la tiray markaan wada fadhiisanay wasiirka Cabdikariin iyo wasiirada la socdana waan saf daranay wax khalaaf oo hadda la sheegay oo dib loogu noqdo waayahay Cabdiraxmaan aan siin doonaa laakiin hal aridan ku weydiinaya waxaana uu yahay inta badan dawladda dhexe waad kala fadhishaan oo waxaad moodaa in xukuumadda qaarkeedna dawladdan aad la socotaan kuwana aadnan la soconin oo awaamirta qaybna aad wada qaadataan qaybna aadna wada qaadanin arrintaabaa laydinku eedayaay maxaad ka leedahay xaasha lillah dawladdanada dhexe waa dawladdanada dhexe madaxweynaha waa madaxweynaha nagi ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaaraha nagi gudoomiyaha baarlamaanka waa gudoomiyaha nagi baarlamaanka wasiirada waa wasiiradanadi saan shalay usoo dhaweynaad ka garan kartaa saan daraad usoo dhaweynaad ka garan kartaa kaliya waxa aan diidayna waxa weeye guriga albaabka laga soo galaaye yaan darashada laga soo galin baan isku haysan jirnay haddii la soo maro dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka Jubbaland haddii la soo maro waa kala sareynta iyo kala marqaashada waa naqaanaa disbiliinkan waa ku fiicannahay wax dhibaato ma jiraan anagu waxaan diidanayn iyadoo nalala soo hadlin in la iska yimaado oo aan ka waralay garoonka la joogo midaasaan aad u diidi jirna anagu waa tahay aad baad u mahadsan tahay khadka waa aad noogu jiraysaa waxaa magaalada Addis Ababa idinla tegay oo isaguna joogay la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo studio ay la jooga Cabdiraxmaan heshiiska habka u dhacay haddaad wax kala socoto bal waxaad nooga tilmaantaa maadaama magaalada Muqdisho la yiri shirki ha lagu qabto kismaayin ha lagu qabto la yiri bal noo kala macnaa sidee buu ahaa qodobkaas bismillahi raxmaan wa salaama ku-xigeenka fartaag idinkana waa salaama Somali Channel Addis Ababa heshiiskii lagu gaaray jubbooyinkii iyo dowladda ay gaareen horta waxaa fiican in dadweynaha Soomaaliyeed si aragti fiican uga helaan arrintan jubbooyinka waxay soo martay waddo dheer oo runtii xilli hore barnaamijkeeda uu soo bilowday sidaa la socotiin waxaa jira wax la yiraahdo IGAD Grand Stabilization Plan oo ah qorshihii IGAD ee xasilinta meelaha shabaabka laga bixiyo maamulada loogu sameynayay qorshahaas waxaa saxay madaxweynayaasha IGAD shir heer madaxweynaha lagu saxay dowladda Soomaaliya waxa uu saxay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka xilligaas jiray Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladdan cusub markay timid Soomaaliyeed go-aankeedu wuxuu ahaa qorshaha xasilinta ayada inay sameyso waxay diyaarisay qorshaha la yiraahdo Somali Stabilization Plan kaas ayayna u geysay IGAD waqti dheer ayuu qaatay runtii in la meel marsiyo markii dambena IGAD madaxweynayaasheedii iyo golaheeda wasiirada arrimaha dibadda intaba way ansixiyeen taas waxay ka dhalatay dowladda iyo maamulka Jubba soo fartaag sheegay isfaham darooyin ayaa markii hore jirtay
oo processka u soconayo ayagana ay processka hore inay usoo wadeen meel fiican oo marayo dhamaystirna uu yahay dowladdan ay leedahay ma xumo laakiin wixii waxaan dib u fiirinaynaa ku jiray waa inay dowladda hogaankii iyo qaabkii ayada ay la wadeegtaa oo wax marka taariikh soo maray intaasoo jeer la isku dayay Kismaayo la tegay meelo kala badan lagu shiray ma doonay taariikhdaas dheer inaan gadaal ugu noqdo iyo tafaasiisha qaar inaad muhiim loo dhex galana ma laakiin sabab markii la tegay saa la socda heshiis lagu gaaray oo ah in shir dib u heshiisiin wajigiisa hor xamar lagu qabto wajigiisa dambana magaalada Kismaayo lagu qabto saa la socoto dad waxaa jira hogaamiyaasha hadda jira Axmed Madoobe iyo Fartaag iyo raggiisa kamid ah ka soo horjeeda oo ay khilaafsan oo deegaankana ka yimid qaarkood xamar ay joogaan qaarkood weli duurkaasi ku jiraan qaar meelo kale ay joogaan marka in aqliga waa keenaya in gogasha nabadeed nabadda Kismaayo looga hadlayo inay Kismaayo taalo sida aqliga sheegay saas waaye laakiin duruufta waxay keenaysaa maadaama wadankan uu kala go'an yahay dad badan aysan hadda meeshii joogin in meelaha qaarkood wax lagu bisleeyo oo gogolaha qaarkood la dhigo taasaa keenaysa marka in xamar marka hore dadka ay isugu imaadaan waana ku mahadsan inay aqbaleen hadeertaan 2 November in xamar la isugu tago kabacdina ma gogasha nabadeed ee weyn Kismaayo la dhigo marka ma 3 maalmood kaliya ku filan Muqdisho hiri Muqdisho waxa laga hadlayo waxay tahay dadkii hore u yimaadeen kooxdan Kismaayo oo Axmedoobi iyo tageen meeshii iyo Fartaagiyo dad badan ay la kulmeen oo dadkii kala duwanaayay ka soo horjeeday ah haddana inay la kulmaan oo ay intay qaataba ha qaado 3 maal hadda waa sidee loo qorsheeyay laakiin ka badan kartaa inay dadkii arkaan ay la kulmaan dadkii isla socda Kismaayo gogashii kale ee weyneed la fidiyo markaas laga hadlo processkii sidii dadkii loo qaybsan lahaa maaragtay dib u heshiin horta ku dhici lahayd labana awoodda maamulka dadka ugu wada qaybgal lahaayeen dadkuna ayagoo wada jira oo dowladoodana raacsan ay wax wada dhisal lahaayeen waa ujeedada meesha dowladdu Soomaaliya door intel ag bay ku leedahay kaba soo qaado kale waxa la yiri maamulka Jubba hadda marka la dhisayo 3 hogaamiye ku xigeen baa loo sameeyaa baa la yiri 3 hogaamiye ku xigeen ma dowladda la imaanaysa oo soo magacaabaysa mise hogaamiyaha ayaa 3diisa hogaamiye ku xigeen isagoo magacaabanaya fiiri dowladdan waxay baas gareysay local government act wax la yiraahdo dowladda Soomaaliyeed oo baarlamaanka ka ansixiso madaxweynaha oo saxiix markii dambe kaas wuxuu sheegay dadku deegaanka ayaga in isdoortaan ay dowladdu aysan waxba u magacaabinin meelaha duruufo gooniye ka jiraan maahane waxaan ku heshiinay waxay ahayd heshiiskii ku qornaa in reer Jubba ayaga laakiin ayaga wada tashi la sameynaya dowladda mar walba sababtoo dowladda waxaa xil ka saaran yahay inay xaqiijiso wax in loo dhan yahay dadkii deegaankana si sax ah in loo wada matalo way kala duwan yihiin xaqiijintaasi dowladda mas'uuliyadda ay saaran tahay laakiin dadku say inay isdoortaan ayaga maamulkooda sameystaan oo wax ayaga u yahay way kala duwan tahay marka la yiraahdo hogaamiye iyo 3 hogaamiye ku xigeen iyo marka la yiraahdo gudoomiyaasha gobolada hal la magacaabo gudoomiyaasha gobolada waa ognahay Axmed Madoobe waa magacaaba laakiin ku xigeenadiisa yaa awood u leh inuu magacaabo sababa heshiiskeedu ku qoran tahay xasaadad akhrisay ina maanta isweydiino ma cidda magacaabaysana way caddahay waxa magacaabay hogaamiyaha laakiin asagoo la tashanay dowladda Soomaaliya meeshan hal ujeediyay ka leedahay ku horta dagaal sokeey inuu ka dhicin labo dadku wax inay u dhan yihiin dad walbana ay helaan xuquuqdooda inay xaqiijiso taasaa keenaysa mar walba ayada la tashado oo mar walba ayada ay marjici noqoto loo soo noqonayay laakiin dadku in ayaga laga rabaa deegaanka inay exercise gareeyaan awoodoodii maamulkooda waa tahay Cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay wali khadka ayaad noogu jirtaa waxaan la soconaa in bare aadan shir bare hiraale ciidamo uu wato in ay ku sugan yihiin dhinaca iyo goobweyn iyo meelo kale sida la sheegay qaab caynkee ah ayaa la doonayaa in bare lagu keeno oo ciidamadiisana maaragtay lagu keeno magaalada Kismaayo tahay su'aal bad ku jirto fiican weeye Cabdiraxmaan Cabdishakuur aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u doonaa Cabdishakuur shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee ka dhacay Addis Ababa rabbi wax buu ka qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa xaw inuu meesha joog ka yahay arrimaha aan ka wada hadlayno dowladda Soomaaliya ama ka wada hadalnay waxa weeye ciidamada dowladda ku sugan dagaalada Kismaayo ku sugan goobooyin meesha la yiraahdo koox asharaad ku sugan qaabkii ay ugu soo noqon lahaayeen magaalada Kismaayo waa ay kale ku jirtay saad la socotaan barta ciidanku waa ciidankii deegaanka ahaa
وعيدك جبلان وعيدك خارج الصومالية وعيدك وكشف بولان وعيدا مثلا أنا باب سياسية وكذا بحي وحنا هنا مثلا يستعاية مثلا اللي مضى يعاية يا مدرسة اللي بيسرع المركز اللي بيسرع هنا مثلا يستعاية بين الشغل بايو قلت واحد دولار قبيلة أما قبيلة ده والدولة يجيبون كتير المجرم ودول سياسية ويربوها مرة ديكي سياسية ودول قبيلة يربح يشغلون عين دول سياسية وحي كوي يمدوه تعيرون كده وكلا بحين تلك السنة كده ديسيس هشيس لغاطي عيلماذا نبع عاين وحان بنح كستا أمادانا جبلان أمادانا فدرالك يا عالم كداش عالم كذا وحان اسكو دبر جبلنا ومثلا عن ست عن أربعين عندها الوقت منه سنة القصة حرام عين عيد كارث ورد صدح مرمر عليه وعلى غرقود أن تبغى الإفاك مركز غرقود أن تبغى عليه عين الصعود يبقى ينوضع عليه كل واحد الصعود عليه كل جود الدار عليه وكبر الجيران لكن عيد كارث وعيد كنجي ومرك وراء غلبي هذا ولا ينطلق كلام سعره الصعود يبسيه من يعيش منه ما عليه عيد كنجي إنه يجيب له نص حرام بان بلس كفاينا يوم الكيس وحالا قال إنه يحل هذا صدح بدي الله سنة وعين كاس بدي دولة فراغ كسعده بدي جبل كسعده يبدي باش عالم كسعده هيك يعمل صوم يباش عالم كسكو جيران بدي بس بدي فرسمون عندنا وراه بدي بس فرسمون الله كسعين دور إن شاء الله وسير كسر حرام دوران يتاكل حرام دوران يمتقنا ما يباش كو حرام دوران يبقي متقنا إيمان دوران ده بدي بس ما كسبان دور عدو لا يرادو ورد كاسم حكومة صدح مرة عليه ودد كوكل فوقين عليه ودد كي مثلا أمريكا ولا شركة عالم فالبيلوسي كلفوقين عليه فأسعى أنت ماشي كبح على الله إن شاء الله تعالى عينك أسوأ سوى حرين الله واتاي عبد الله إيه حاجة ليك العين يسمى لو كان صار الله سياسيين كل عجبت عينك إن شاء الله أنا سمى وكيل على الله إيه وكيل على الله dowladda federaalkana waa ka wahadalay ayagoo si nabad ah ayay ku tegi doonaan meeshii mataqaana ay ka yimaadeen markooda ay ka yimaadeen dalka u dhasheen rawe deegaanka waa u dhasheen laakiin fidna ka dhalatay imaansi ay yimaadeen fidna kale tacarada insha allah si fidnaas ay soo sii faafin waxay ku noqon doonaan dowlad laga talgalay hadduu la yidhaahdo ciidanku waa ciidanka jubbaland waa tahay adigu waxaad doonaysaan waa tahay adigu waxaad doonaysaan baa la yidhi ciidamada barahiiraale in la geeyo doolow iyo gade iyo meelahaasoo inay kismaayo imaanin baad doonaysaan baa la yidhi marka arrintaasi ma dhaba horta wax badan baa ka qaldan dadka ama saxaabada ka qaldan ciidanku ciidanka barahiiraale maahan waa ciidanka jubbaland barre waa yimid halkaan buu yimid ciidanka nabad buu u deganaa ciidanka laba meelood baa lasoo kala tababaray qaar dowlad baan kusoo tababarnay qaarna kamaando dowlad siyoona baan kusoo tababarnay qaarna raaskambooni ay ka yimaadeen ciidanku waa ciidanka jubbaland ciidan barahiiraale lagu goonaya meesha ma degano ciidamo soomaaliyeed isku dhafay weeye ciidanka barahiira lama dhihi karaa ciidanka soomaaliyeed ee meesha degan baa la dhahayaa taas horta dadkan ay u sheegnaan jecel nahay insha allahu tacaala barahiira doon buu ku yimid hadduu la yidhahdana haatan wuu ka dhaxayaa oo meesha laga talgalay ama dowladda soomaaliya geen doontaa ama meel geen doontaa ciidamada waa ciidamada jubbaland dib bayna jubbaland u imaanaya kismaayo imaanayaan dowladna looma wado ayagana looma wado dadka waxay sheegayaanna dowlad weya ciidanku wuxuu imaan doonaa kismaayo isagoo labadooda noo imaan doonaaye إذا أنا الدولة الجيرة أنا أهل الجيرة معهم إذا كنت إذا أنا تسمعه لكن على كثار الله سياسة دي ما تحدث شيء يعينك على كثار الله. وتهي إن بل هذا خدك كتير إن وحرب عبد الرحمن هل إن كويتي شركة إن كدعية مجالة ما دام عاد واحد بدن عاد إيش كويسي أرنتنا كقيب قادتي جبة يدولة يخلاف سون أرد على هين عاد قيب وين كقادتي بل هذا see looga soo qeyb galayaa magaalada muqdisho shirkeeda barahiiraale iyo nimankii madaxweynayaasha sheegtay oo beelaha kale ahaa iyo raggii kale oo ma imaanayaan oo isoo hor fariisanayaan axmed madoobe iyo raggaasi maadaama ay dagaal ay macnaha markii hore ku kala tageen xasan fiiri heshiiska adsaba lagu gaaray wuxuu sheegaa dib heshiisiin wuxuu sheegayaa ciidanka in laga dhigay ciidan qaran lana saddex geliyo wuxuu sheegayaa awoodda iyo maamulka in la qaybsado dadkan ay u dhamaadaan wuxuu sheegayaa kaabayaasha dhaqaale meesha si ku meel gaara maamulka inuu haayo ka bacda 6 bilood gudahood dowladda uu ku wareejiyo cawada telefishinkan ugama doodi karno ciidanka
see laysku dhex gelinayaa xaggee kuwa xagga jooga la geynayaa kuwa kale inta la keenay laakiin mabaadida guud ee meesha taalla waa intaas dowladda waxaan xil ka saaran yahay laba arrin dowladda xil ka saaran yahay iyada inay xaqiijiso dadku inay awoodda meesha u dhamaadaan fiiri meeshaan jubbooyinka leeyahay Soomaaliya meelaha ugu waxay aad weliga lahayd ugu dhibka badan ugu mashaakilka badan leh waxa keenaya waxa waa qabiilada Soomaalida oo intooda badan meesha degan meel dagaalina weligeed ahayd kaliya hadda intaas maaha meesha waxaa jiro local actors dad oo kala duwan oo local ah jiro waxaa jiro regional actors jiro oo gobolka ah international jiro meel marka iska sahlan oo kaalay ku soo xalli kala tuur arinteeda si hal loo dhahayo ma dawladdu wuxuu xil ka saaran yahay dadka inay dibashiin u sameeyso kuwii magaalada ka soo baxay iyo kuwii ku jira inta inay dibashiin u sameeyso markay dibashiin u sameeyso inay formula lagu heshiiyo awoodda lagu qaybsado dadkana u sinaadaan si dadka hadda hoggaanka hayane ay sharciyad iyo legitimacy dadkooda uga helaan dadkoodu ay wala ahna maamulkii ay u hirgalo saasna marka ay ku dhamaato howlaha kale oo technicalka oo in ciidan qaran laga dhigo ciidamada dhex geliyo dawladda marka iyada waxa laga rabaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inay dadkan isku wada heshiisiiso siyaasiyintooda isku keento ciidankooda isku darto siyaasiyiinta kuwii maaragtay hadda la arkay inay processka aysan qayb ka noqon karin sidii u maaray dawladdu waa weyn tahay dawladdu maaha kaliya dadka siyaasiyiinta laakiin dawladda laftirkeeda waxaa la leeyahay gacan ku gambad ayayba ka tahayba dhinacan jubbooyinka waxaana muuqata in cadaadis badan oo dhinaca jubba uga imaanayo oo aad og tahay magaalada Kismaayo maanta macnaha in ay jiraan khilaafaad oo ragga qaarkoodna ay ku dhiiri karin maamulka Jubbaland wuxuu ku doodayaa inuu Muqdisho waxa la joogay 3 maalmood iyo wax lamida inay yihiin oo Maxamedoobe dad inuu arkayo oo maaragtay waxaas kaliya lagu doodaya marka arintaasi ma noqon kartaa mid xalka laga rabo gobolada Jubbooyinka mid qayb weyn ka qaadanaysa halkii laga rabo gobolada Jubbooyinka xasan oo dad u maleysay inay shir xamar loo qabto ama mid kale loo qabto ku dhamaanayso ma waxaan ka hadlaynaa in wadada saxda la qaado dawladdu waa dawladda Soomaaliyeed dabcan dawladdu waxay u duwan tahay unugyada kale ee xooga kale xogta ay helaysay macluumaadka ay ogtahay iyo dadka sidii kale yihiin dadka fiir waa qabaa'il wali waa isdirrisiin Soomaalida isma aaminin ma heshiinin ajandayaal kale gobolka ku jiro kuwa international ku jiro dawladdu waxaas oo inay xirisaa waajib ka saaran yahay kuma dhahayna dawladdu hadda artaan beri dambe waxaan kala xalinaysaa laakiin dawladdu hal mid ah u muhiimsan in kuwa wadada saxda ah la maro dadkaana inay heshiiyaan inayna awoodda u qaybsadaan waxa la isku hayo waa resource-kii power-ka wax meesha yaal dadku si kale iskuma nacba qabiilana iskuma haystaan dada u fasiraya markii arinta magaala ka madax banaana jiro la tagay in dadkan loo simo maamulka iyo awoodda ayagoo heshiisan ay wada dhistaan maamulkooda meelna uga soo wada jeestaan cadawgan ayaga dhan dadka aanan kala reebayn shabaabka ah dibashiina meesha ay ka dhaltaa dawladdu waajib ka saaran yahay wada kastay dawladdu u mareysane way ku mareysaa dariiqo kasta awooddu power badan ku lahayn maamulka Axmed Maxamed Islaam aysan awood badan ku lahayn awooddeedina gacanta ay ku hayaan magaalada Kismaayo lana doonayo in maamul loo wada dhan yahay laga sameeyo maxaa loo heli waayay haddayna ayagu ogoleen magaalada Muqdisho in shirku lagu dhameystiro Kismaayana ay leeyihiin sida hadda rag aan la hadlay qaarkood ay leeyihiin walwal iyo xaggaas baan ka qabnay in wax cadaalad u dhacaan dawladdu awood intee la ag bay ku yeelan kartaa inay xakamayso oo kalsoonida dadka kale ee ka soo horjeeda Maxamedoobe inay kasbato intee la ag bay muhiimadda dawladdu dadku inay awood ku yeelato ma xasan taa ka qaldan taas way dawladdu inay awood ku yeelatay qasabta ma dawladdu waa inay ixtiraamaan sharciyadana u hoggaansamaan way taasna waxay ku kasban kartaa dadka inay isku soo dhaweyso dibashiin dhex dhigto isku dayda inay kasbato maaragtay quluubtooda iyo maaragtay aqligooda ay kasbato taasa keenaysana dadkan in la heshiisiyo processkan waqti dheer oo soo qaatay meelo badan oo soo maray waa la socota geedo badan oo soo istaagay arin sahlan ma dawladda marka hadda muhiimadeeda waxay tahay inay shirka xamar loo qabtane dadka iyo maamulka hadda Jubba oo ku meel gaarka oo la soo heshiiyay la heshiisiyo xaqiijisana oo ku celinaya markasta in dadkaanu ay u dhan yihiin waxaan ay ka wada muuqdaan iska wada dhaxarkaan hadii loo dhamaan heshiisiina ay timaado mas'uuliyadaas waa mas'uuliyad dawladda saaran waana ku heshiinay hogaamiyaasha Jubba in dadku wax ay u dhamaadaan waana ka gaari kartaa luqadda hadda fataa dadka oo ka soo wada qayb galiyaan oo ay ogol yihiin xataa inay ciidanka keenaan oo
hadda waa runtii sida Addis Ababa loo tagay dowladda iyo dadka jubbooyinka waa heshiiyeen waxaan rabnaa marka in la iska yareeyo in la iska yareeyo dadka iyo taliye ciidan mise abaanduulaha ciidamada goortii laga soo celiyay soo markii Addis Ababa ka dambeysay ma ahayn abaanduulaha ciidamada soo celintiisa soo celinaantiisa waa arrin AMISOM dhexdeeda ah protocol iyo procedure AMISOM dhexdeeda ah maxaa AMISOM ka galay Cabdiraxmaan dowlad may waxa soo celiyo AMISOM maamul kumeel gaar soo ma celin waxa soo celiyo protocol AMISOM dhexdeeda iyo procedure AMISOM u yaala wax laga hadlayo taasna waa la sixi doonaa dhib male waxaan way iska imaan doontaa waqtigeeda laakiin waxaan kala hadlayaa waxay tahay dowladdu waxa mas'uuliyad ka saaran tahay xasan dadkuna inay heshiiyaan dagaal sokeeye dhicin awoodan loo sinaado maamulkan la qaybsado dadka iyadoo jiran ee shabaab ka soo horjeestaan ciidanka meesha joogan ciidan qaran laga dhigo oo ciidan maleeshiyaad laga saaro dowladdu markaas ay iyadu keeni kartaa dowladnimadii Soomaaliyeed meesha ay ka xaqiijin kartaa hadafkeenana waa intaas dowladda waa tahay waxaan aad baad u mahadsan tahay kulliba waqti badan baad khadka ku jirtay Cabdullaahi su'aal baan ku weydiinayaa oo ah adinka waa horta abaanduulaha ciidamada ee la soo celiyay ma adinka ayaa maaragtay xaqiina ayay ka timid mise ciidamada Kenya iyo ciidamada Sierra Leone ee jooga magaalada Kismaayo ayaa sabab u ahaa inay soo celiyaan aad baa umahadsan tahay su-aal fiican weeye oo dadweynaha Soomaaliyeed in loo faahfaahiyo u baahan Cabdiraxmaan Cabdishakuur walaalkeeda aad ugu jawaabay aniga u dhamaystirayaa xilligii uu imaanayay Jenaraal Cabdirasaaq madaxweynaha Jubbaland wuxuu ku maqnaa Nairobi halkan anaa sii joogay laba hadlin madaxweynaha oo lama wargelinin anigana lama soo wargelin maamulka halkaas sii joogna lama wargelinin waxaan ka waralnay oo kaliya inuu generaalku joogo asaga iyo kala jaan oo AMISOM inay joogaan meesha la yiraahdo garoonka Kismaayo socodkiisa iyo wuxuu ku socday iyo meesha uu socdayna hadii anagu markii hore lama sheegin hadii wax anaga shaqo ku leeyahay ma ahayn AMISOM wala socotay AMISOM waa u yimid hadda anaga noo qosay safarkan sada waa farsamada soo soo Cabdiraxmaan ku sheegay waa haddaad ku raacday haddaad ku raacday hal su'aal oo kale ku weydiinaya haddaad ku raacday hal su'aal oo kale ku weydiinaya waxaa jiray madaxweyneyaal sameysmay markii aad ku dhawaaqdeen xilka madaxweynenimada Jubbaland ayagiina waxaad moodaa in qaarkood duurka ay ku jiraan waad sheegtay ma ogoshihiin in dowladdu magaalada Muqdisho ay isku soo hor fariisiso oo aad wada hadashaan oo aad macnaha powerka oo macnaha wada qaybsataan maadaama ay ciidamo hubeysanaystaan khilaafaadkuna oo iyaga kala dhaxay aad u mahadsan tahay arrintaas la fikirkeedu waa arrin u baahan weeye in si fiican dadweynaha loogu faahfaahiyo barnaamijkan Jubbaland wuxuu soo socday muddo 4 sano ah wuxuu soo bilowday xilligii uu madaxweynaha ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ninkii hadda dadka ku jiro Cabdiraxmaan Shukuur laftiisa wasiir uu ahaa soo bilowday 2009 markii mashruucan uu bilowday wax dhow ma ahayn wuxuu ku bilowday in dhulka laga kiciyo al-shabaab marka al-shabaab laga kiciyo loo gudbo maamul waddanaysa dagaalka intii lagu soo jiray ugu dambeyn magaalada Kismaayo waxaa la yimid October sanadkii hore markii laba ahayd ka bacdi haddii magaalada Kismaayo ugu weyneed al-shabaabka la qabtay gobolka Gaboona magaalada ugu muhiimsan la qabtay magaalada kale oo Jubbada Hoosana la qabtay waxaa la go'aansaday in dadkii soo imaadaan ay sameystaan maamul ordooyinka waxay fadhiyeen muddo 6 bilood ah intaana la dooran madaxweynaha taa waa ogahay Cabdullaahi waqtigaan nooga dhameeyay Cabdullaahi markii ahayd doorashada dhacday ayaa 3 nin oo Baaley iyo ninka la yiraahdo Baaley iyo Baasto iyo Buraale waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Buraale wuxuu ka soo degay meesha la yiraahdo dekada meel u dhow oo la yiraahdo Kabooro oo doonbu ku yimid isla maalintaas bay hal mar ku dhawaaqeen madaxweynaha yihiin waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa oo la marin haweenayo doorashada Afrika soo socday oo inta aragtay dagaal soo maray oo waxa aragtay shaab laga soo dagaalamay iyo maalin 3 nin oo diyaarad ku timid iyo nin doonta ku yimid inay madaxweynayaal baan yiraahdaan haddii taas inay dhalitada wad garanaysaan insha Allah taala khalaaf baa dhacay marka haddii khalaaf dhacay sida wada weeyna waxaan ku jirnay waxaan adisay tagnay ahayd waxaan Nairobi tagnay ahayd waxaan Xamar tagnay ahayd hadda Xamar baa ku noqon doonaa insha Allah taala ayay dadweynaha la socdo ama dadka wax sheegaya iyo qabiilka la socdo haddii imaadaan waan qaadayna insha Allah dadka inay ka mid yihiin kama weynin wala fadhiisanayna wadanaynaa laakiin waxay sheegayaan inay wax ahayn arabka warka ayaanu arkayna intaas waa intaas
وحكى ربنا نقطة استعاية سؤال دم والوجين ده درته دبلونا رجع بلان ملك استجوا ولا على شيء بعد أنا وشعب مثلنا دبلونا رجع بلان مثلنا مركز المغرب شلون طارئ هشيسكي عن سنة هنا محمد كذا عن فرع برلا دبلاني وحنو مرة الحياة قلبي يقولوا واحد داري ذكر رجع بلان ملك استجوان عاي مركز واحد دودا وصف الاستواء يقول وحيوه هنا الناس يقول ذكر رجع بلان ذكر رجع بلان وحيوه heshiiska aan dawladana wala galnay oo aan ka aqbalnay waxa weeye waa in uusan burburin ama aan ciribna ka dhaxgelinay dawladanadi oo aan maxaa la yidhahdaa isu qalbi xaarnaano oo aan isu wadaansano oo xagga kuwasan asanaano si ay u dhacdo heshiis rasmi ah oo maxaa la kumeelgaar ahaan rasmi ah oo dib u heshiis rasmi ah oo la isku raacsan yahay oo dawladana federaalka lagu raacsan tahay ودينا مقر صاحبنا ولا واحد السنة يقول عطيهم وأن كسبت بوسة نقدر نعمله فيه عبد الله سبح برشور سعد دارو أو تشاء ونطلع الإكسماعيلية مثل عم قدشوا شرويني اللي يدرسين اللي يبغوا كده عدوها بدونا يرجع بالله عرض النظر ما عدا حمر ولا هذا عليه حمر وعاصمة بنا يدب ملان هنا رلا عطان هنا ديما كسب اللسان هنا مثلا نود الإنسان هنا الدولة اللي أنا جرا قلبي هنا واحد شو مريض هنا أنا يسوي الدولة هنا أنا نقول أنا وطا إنسان وعاو أنت سأيرة واحد لا تاو كلاتي واحد شو كان مني نسويش كل جرم أنا هنا الدولة أنا وش وعاو واتا أدى ما سنتهاي عبد الله وأنك سلام يا أدى كوم هاد علينا يا فرصة داسي تلفون كاسي وقت قدر ناد كجرتي قريبها كلا برنامج كأيان قلينا وأنك سلامي واتا هاي ويا عبد الرحمن arrimo kalena waan ka hadli doonaa laakiin hal arrin baan raacsanaya ka sokow jubba hadda waxaa naqlayaa in xildhibaano aada u tiro badan oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay iyaguna u tagayaan magaalada Baydhabo kulan lagu dhisayo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo waliba khamiista ama wixii ka dambeeya la tagayaa ilaa intaas oo xildhibaan oo rag badan oo ay hogaaminayaan marka waxaana la leeyahay 6 gobol lagu dhisaya marka soo halkaas laguma kala socdo xagga dawladda marka aad fiiriso wallahi saan ku sheegay Xasan dadka Soomaaliyeed hadda dawladda wada dhistay dawladda federaalka waxay wada dhisteen waa dawladda laakiin nidaamkan federaalka iyo qaabkii loo dejin lahaa federaalka iyo qaabkii loo hirgelin lahaa dastuurka qabyadana wali kama hadal ama ku meel gaarka تفاصيلنا ويلمنتها لكن دولته waxay ku dadaashay inay sameeyso wax la yiraahdo local government act oo macnaheedu yahay sharciga maamul sameynta gobolada waxa la wixii sharcigaas waafaqsan waa wax dastuurka waafaqsan baarlamaanka ansixiyay xildhibaanada aad sheegayso hadda gobolada aada iyo kuwa kale tan kaas un bay ansixiyeen marka waxaan rajaynayaa in heshiiskii hore oo gudoomiyaha baarlamaanka oo Baydhabo ku soo saxay inay kamid ahayd qodob kamid ah in sharcigaas la waafajiyo wixii la dhisaayo marka waxa la wixii sharcigaas waafaqsan un ba inay sax noqon doonaan aan u haysto qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha ayaa oo ku macnaha lagu saxeexay ayaa jiray oo warbaahinta dhan ay qaadatay oo uu ku taageerayo 6 gobol waana gudoomiyaha baarlamaanka waa hogaamiyihii ugu horeeyay ee dawladda waddanka Soomaaliya kulliba cod ahaantiisa iyo arintaas anagu kama hadlayno laakiin qoraal si rasmi ah xafiiskiisa uga soo baxay ayaa jiray oo arintaas lagu taageerayo miyaan taas ma qoraalku wuxuu waafaqsan yahay in maaragtay waxa ku jira qoraalka naftiisa in loo sameeyo si waafaqsan sharciga maamulada gobolada la sameeyay sharcigaasna waa soo xuquuqay way cadahay sharciga federaalka dastuurkana wuxuu sheegayaa in 2 gobol wixii ka badan ay midoobi karaan dawladda Soomaaliyeed waxay markaas ku adkeysanaysay horta in maamulada gobolada la dhiso oo gobolada maamulada markii la dhiso waxa midoobay inay gobolada noqdaan maamulada gobolada sharcigana saas ayuu tilmaamayaa arintan oo challenge gala waxay tahay oo sidoo caqabada ah nidaamkan federaalka ah ee dastuurkana uu sheegayo laakiin tafaasiishiisa si loo horgelinay qaabkii loo horgelin lahaa wadada loo mari lahaa markasta wuxuu abuurayaa crisis siyaasadeed waa iska caadi in dadka qabiilada qaarkood inay dhahaan deegaanada anaga iskala kuwa kale ay diidaan kuwana ay kuwa kale sheegtaan kuwana waa iska caadi wax imaanaya laakiin dawladda
waxay markaas ayada ku dadaalaysaa inay sameyso mechanism waxaas lagu xaliyo mechanismkana waxaa qeyb ka ah in dastuurkan loo hogaansado sharciga kumeel gaarka sharciga gobolada ee dowladdu samaysane in lagu dhaqmo wax alaale wixii dastuurka iyo sharciga baarlamaanka uu ansixiyey khilaafsanne dee waxaa sharci ma yeelan doonaan waa tahay xoog jubba barya kuma dhismin maamulka axmed madoobe wuxuu ku dhismay awoodo badan iyo culeys badan iyo xag walba dowladda laga saaray dowladduna waa ognahay madaxweyne wuxuu ku hadli jiray waa inuu diidanaa ra-iisul wasaaruhu diidanaa markii dambena dee in la tagay sabay noqotay miyaanay arinta noocan oo kaleana tan oo kale aysan imaan karin maadaana jubbaland waxay ku dhamaatay in maamulkan kumeel gaar uu noqdo haye qaabka federaalkana la waafajiyo dastuurka processka federaaleynta wadankan ay qeyb ka noqoto maamulkana maamul kumeel gaar jubbooyinka uu noqdo intii laga sameynayo federaalkii iyo nidaamkii iyo halkaas kusoo dhamaado un wax walbo lasoo maraba marka dowladda iyada waxay markasta ka taxadar ka qabtaa waxa la sameynaya dastuurkana raacaan sharciga hadda la ansixiyay baarlamaankana uu u hogaansanaado laakiin wax badan waa runta waxaa jira political reality situationka uu tilmaamayo waana kuu sheegay arrimaha qaarkood ama gobolada jubbooyinka ama soomaaliya guud ahaanba arrimaheeda wax soomaali keliya soomaali iskhilaafsan wax loo daayo maaha regional jiro international jiro waxaasoo dhan inaad xeerisaa u baahan tahay laakiin dowladdu waxay waajib ka saaran yahay waxay tahay keliya dastuurka inay ilaaliso sharcigan kumeel gaar sharcigan gobolada maamulkeeda lagu dhisayana la raaco aniga waxaan u haystaan jubbooyinkan hadda kaas un bay qeyb ka yihiin inay nidaamka federalistkana qeyb ka noqdaan sharcigaana lagu dhaqo wixii si kumeel gaara oo arrin siyaasadeed sababtoo maadaama waxaan uu soo sheegay hadda fartaag dowladdan ay ka horreysay ay dowladdii hore soo ogolaatay wax socda ay ahayd in si mechanism waaqac siyaasadeed looga xaliyo looga baxsado waa loo baahan yahay mar kasta dowladdanu dee inay mararka qaarkood sharci keliya maahan inay siyaasadda la tacaadisho u baahan tahay laakiin waxa dowladda ka go-an waxay tahay in jidkaas oo dastuurka iyo sharciga maamul sameynta gobolada la maro waa tahay waxaan jeclaan lahaa laba qofood intaanan u gelin qodobka kale inaan siiyo oo halo assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullah waad mahadsan tahay barnaamijkana waa la socotaa waxaana ka hadlaynaa heshiiskan jubbooyinka iyo shirkan la tegayo iyo caqabadaha imaan kara haye maxaad ka leedahay waxaan ka leeyahay arrintaas horta ani magacayga waxaa layihahdaa xasan cashuur waxaan ka hadlayaa magaalada islam wadanka ingiriiska arrimahan jubbooyinka waxaan ka leeyahay procedure dheer buu soo maray jubbooyinka 4 sano oo lasoo xoreeyay jubbooyinka kadibna waxaa dhacay khilaafaadkiina waxaa lagu soo xaliyay wadanka Ethiopia shuruucdii iyo qodobadii ka soo baxay meesha la yiraahdo Addis waxaa moodaa dowladda inay dhinac marayso shuruucihii iyo qodobadii ka soo baxay waxaa daliil u ah shirkan hadda ka dhacaya meesha la yiraahdo xamar ee lagu ballamay heshiiska kuma jirin therefore laakiin waxaa moodaa yani ziyaado mutawafaq macnaha in dadkii la heshiisiinayo laakiin waxa ayaan darra ah nin inta magaaladii iska yimid Kismaayo magaal laga sameeyay oo dad ku laayay oo sabab uu ahaa haddana baxay al-shabaab u galay haddana in la yiraahdo in la soo qaado dowladda ku magac yeelato la soo qaado la yiraahdo waa qaadaynaa xamar baan geynaynaa oo waxaan wada heshiisiinaynaa asaga iyo maartay guruubo kale iyo dowladda Jubbaland arrintaas marka dowladda amay qarif ku noqotaa oo arrintaas ay dhaawac weyn u geysataa khalkhalna ay gelisaa nabadgelyada dalka Soomaaliyeed waa tahay aad baad u mahadsan tahay khadka xiga ayaan eegaynaa halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum halo alaykum assalaam waraxmatullah walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso alaykum assalaam waraxmatullah haye xaggee naga soo wacaysaa magacaaga walaal waxaan kaa soo wacayaa magaalada Kismaayo haye haye arrinta haddaad fikradeeda ka dhiibto heshiiskii lagu soo galay magaalada Addis Ababa kuma jirin in 2 jeer la tago meesha la dhaho xamar waa gartay telefishinka ayaad dhegeysanaysaa ama daawanaysaan u malaynayaa marka sababtaasa khadku mar walba dib u dhacaya waad mahadsan tahay waan fahmay su-aashaada
khadkan ayaan eegeynaa kadib aan la taliyaha u dhiibeynaa insha allahu tacaala. halo assalaamu calaykum. halo assalaamu calaykum. waa ka go-ay. halo halo assalaamu calaykum. وعليكم السلام. haye walaale bal haddee soo koob adoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabayo su-aasha aa qabto. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا هوي Soomaaliya. haye hadda horta waxaan oran lahaa adinka wariyaashiinu ma waxaad tihiin waxaan oran lahaa wariyaashiinu horta raalli adinkoo waxaad tihiin ma waxaad tihiin nabad horseedayaal mise horiyayaal baati 24 saac maxaa loo arkaa waxaa la wixii la soo qaado oo heshiisada adinka oo daba taagan oo dhibaato amniga in laga abaabulayo oo soo aragta soo noqonaysa horta waxay noqonayaan alla garanaya arrintan suuqyada oo kasbaayona ummadda waa ku daba dheeraatay mudada kale waxaan la yaabsanahay dadka isla markasta ka hadla jubbooyinka waxay ka hadlaan dawladdu sidaasay tahay dadka shacabka oo dawladda loo dhisay oo dawladda ka midka waxa qaladka ay leeyihiin ma sheegaan ma tilmaamaan maamul goboleedku inuu qaato ama amaamiinta madaxdiisa ma ka hadlaan waxyaalaha dastuurku ayaga u tilmaamaya midooda kale ma ka hadlaan dastuurkana waxaan u malaynayaa lagu dhagaya dadka inuu diinta uga baxo wax ilaahay diintiisa ka hadlaya iyo wax la war ilaahay kutubkiisa maxaa laga yiri diintiisa ma la arko 24 saac dastuurka ayaa laga waxaan muddo jubbooyinka ka qabaa arrintan qayb bay ku dhamaanaysaa ummaduna waa heshiinaysaa ummadda wanaag waa tahay aad baad u mahadsan tahay hayo Soomaaliyeed waan ku salaamaya haye bal waxa aad ka jawaabi kartid ragga intooda badan waxay leeyihiin dastuur maba ku jirin ba shirkii Addis Ababa in xamar la tago waa ku jirtay waa tahay haddii ay ku jirtay waan la tegi doonaa waxaan rabaa anagoo soo gabagabeynayna bal hal waqtigana ay macnaha gacanta taagayaan farsamo yaqaanadii haddana bal dhowr daqiiqan ka xadaynay waxaad ka warantaa inta badan waxaa la yiraahdaa dawladda adigu la taliya dhinaca siyaasadda madaxweynaha ta waxaana warar soo baxaya ay inta badan hadda sheegayaan in dawladdii laftirkeedii inkastoo hal sano ay jirtay wax qabad ay soo sameysay xilligan aad moodo xilligii iskhilaafka inuu bilaabanayo oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihi la leeyahay waa iskhilaafsan yihiin oo baarlamaanka lagu kala tartamaya lagu kala ordahaya oo hadda ay bilaaban doonto kow iyo arrimo bal hadda maxaad kala socotaa arrimahaas hor dawladda halka sano ay jirtay haddii arrinta jubbooyinkan ay heshiis ka gaartay Puntlandna ay la seexatay heshiis wada shaqeyn ah Somaliland wada hadal inuu miro dhale aad moodo ay la gashay shirar waaweyn oo caalamiya kii London lagu qabtay kii process lagu qabtay qorshayaal iyo howlo dawladeed oo ayada ay leedahay ay geysay runtii waxaa dhihi karaa intaas nafteeda waa tilaabo weyn ku talaabsatay waa runta wadajirka madaxda dawladda Soomaaliya dhaqan uma ahayn inay wada jiraan oo ay iskhilaafina waa arrin oo aad iyo aad runtii wanaag u ah aniga khilaafka hadda sheegaysa ma ogi laakiin waxaa dhici karta dawladda mar kastaba dee waxay ku xiran tahay qiimeynta uu sameeyo madaxweynaha uu qiimeeyo xukuumadda ama baarlamaanka ay qiimeeyaan marka haddii baarlamaanka asaga qiimeyn uu sameeyo xukuumadda uu qiimeyn ka sameeyo uu ku qanci waayo dee lama dhihi karo baarlamaankii mas-uuliyaddiisa waa xukuumadda inuu dabagalo oo la xisaabtamo prime ministerka hal sana inuu kabacdi u yeero weydiiyo su-aalo qorshihii sanadkii lasoo dhaafay iyo qorshaha soo socda ka warbixiyo oo la xisaabtamo waa shaqo baarlamaanka u taalo madaxweynaha inuu ku qanacsan yahay hawsha golaha wasiirada iyo xukuumaddan inuu qiimeeyo waa mid asaga u taalo de wixii waxaa iska yimaado waa iska politicska normalka waxaa laga yaaba annaga Soomaalida waxyaalaha isqiimeynta iyo su-aal isweydiinta inuu aran inay caqabad tahay laakiin waxaas ani marna caqabad uma arko laakiin wax khilaaf ma jiraan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo aad moodid inay arrintaas la doonayo ra-iisul wasaare inuu iscasilo oo ama khilaaf waxaa la yiraahdaa dee madaxweynaha iyo مثلا ra-isul wasaaraha arrinta jubbooyinka ama arrinta dastuurka ama arrin wax laga sameynaya isku khilaafsi taasaa khilaaf la yirahdaa laakiin la isqiimeeyo ra-isul wasaaruhu wuu isqiimeyn doonaa dabcan si uu isku qiimeyn doonaa madaxweynaha si uu qiimeyn doonaa baarlamaankana si uu qiimeyn doonaa qiimeyntaas de waa iska caadi normalka processka siyaasadeeda kamid tahay wax marka maaha la dhihi karo waa khilaaf
cabdiraxmaan aad baan kugu mahad celinayaa insha allahu barnaamij kan ka ballaaran ayaan isugu imaaneynaa oo aan arrimahaasi dowladda oo aada iyo aada u dheer aan jecelnahay bal inaan si gaara aan uga sheekeysano balse hadda waxaan kaga mahad celinayaa waktiga inuu ii saamix waayey oo barnaamijka maanta aan ugu talagalno uu ahaa arrinta jubbooyinka ayuu ahaa oo aada goobjoog u ahayd iyo fartaag oo isaguna ahaa madaxweyne ku-xigeenkii isaguna goobjoog u ahaa aada baanan macnaha uga mahad celinayaa cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag sida uu waktiga qaaliga noo siiyey cabdiraxmaan cabdirashakuur la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isagana aada baan uga mahad celinaya waktigiisa qaaliga uuna siiyey farsamo yaqaanada barnaamijka iyo farna cabdisamed iyo weliba maxamed yare aada baan idinkugu mahad celinayaa sida quruxda badan eed barnaamijka inoogu wadeen saaxiibayaal cidda uu sheegay waxay ka daalacan karaan dhacdooyinka .com iyo xogta news .com halkaa ayay ka daalacan karaan cidda uu sheego barnaamijka falanqeynta dhacdooyinka waxay kaloo ka daalacan karaan youtube.com/somali channel saaxiibayaal wixii dhaliila waxaad noogu soo gudbin kartaan shaashada emailka ku qoran waa anigoo xasan cadaa oo idinle sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu dhacdooyinka waa barnaamij aalaaba looga faalloodo arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo wararka iyo warbixinada degdega ah ee markaasi ku soo kordha xaaladda soomaaliya iyo guud ahaanba geeska afrika barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka waa barnaamij ay ka qayb qaataan rugcaddaa siyaasadeed iyo weliba aqoon-yahano ku xeel dheer xaaladaha markaasi laga hadlayo bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqeynta dhacdooyinka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee somali channel xaruntiisa dhexe ee magaalada london barnaamijka daawadayaal guud ahaantiis waxaynu kusoo qaadan doonaa arrimaha ay ka mid yihiin heshiiskii dhowaan ay gaareen dowladda dhexe ee wadanka soomaaliya iyo maamulka kumeel gaarka ee jubba oo ka dhacay magaalada kismaayo kadib markii maalinimadii shalay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed iyo hogaamiyaha maamulka jubba axmed maxamed islaam axmedoobe ay shir jaraa'id ay qabteen ku sheegeen in ay ku heshiiyeen waxyaabihii lagu kala aragti duwanaa islamarkaana shirka ka dhici doona magaalada muqdisho ay ka qeyb galayaan haddaba heshiiskaasi waxa uu soo maray nidaam dheer waxaa jiray khilaafaad ka dambeeyey oo labada dhinac warbaahinta ay markaa ku sheegeen kadib markii ay dowladdu tiri waa in maamulka jubba uu yimaadaa magaalada muqdisho hadda ayay ogolaadeen maamulka jubba inay ka qeyb galaan barnaamijka haddaba waxaa igala qeyb galaya la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo aan uga mahad celinayno aqbalaada oo naga aqbalay inuu stuudiyaha noogu yimaado waxaa kale oo khadka taleefonka magaalada kismaayo uga qeyb galaya hogaamiye madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland waa cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag haddaba oo isagu wax ka saxeixay heshiiskii lagu gaaray magaalada addis ababa ee wadanka etoobiya haddaba daawadayaal waxaan rabaa in aan marka hore bal wax inoo sharaxo cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ku sugan magaalada kismaayo bal heshiiskani iyo qaabka uu ku yimid haye cabdullaahi waayahay bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa idaacadda somali channel waxaan salaamahayaa dadweynaha soomaaliyeed inkastoo naga dhegeysanayaan waxaan kaloon salaamahayaa saaxiibkay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo anaa u salaamahayo arda noqdo su-aashaad i weydiisay jawaabteedu wax badan oo xasan caddow idaacadaha ee qaldaan baa jiro wax badan oo websaydyada ee qoraan baa jiro horta annaga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya heshiiskii addis ababa wixii ka dambeeyey wax khalaaf ah iyo wax mugdi oo nasoo dhex maray midna ma lahan dadka hadalka siday rabaan bay iska dhigtaan ama hadalka waa la badbadiyaa sida la rabaa loo badbadiyaa laakiin waxaan caawa dadweynaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan aan u sheegahayaa in annaga iyo dowladda federaalka ee soomaaliya maxaa la yidhahdaa wax khalaaf ah una dhex maray aana jirin heshiiskii addis ababa wixii ka dambeeyey oo dowladda soomaaliya ee federaalka ah iyo maamul goboleedka jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland hadda si rabaa loo dhigee ay ku heshiiyeen kabacdi wax khalaaf ah oona dhex maray ama wax madmadow oona dhex maray aysan jirin
laakiin heshiiskaan shalay dhacay ee wasiirka arrimaha gudaha iyo waftigu uu hogaaminahayay oo uu ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga cabdiraxmaan dheere iyo rag kaleto mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen ay noogu maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka arrimaha gudaha ay war-saxaafada soo wada saareen macnaheedu ma ahan xamar taga iyo ma tegayna ma ahayn waxa la isku hestay waxa weeye wixii kasoo baxay Addis Ababa go-aanadii ku qornaa markii horeeta muxuu ahaa communiquega iyaa waxaa ku qornaa 2 usbuuc gudahood inaan xamar tagno innaga xamar waa tagnay dowladda iyada laakiin waxay u qaadatay tegitaanka xamar salaan iyo mataqaanaa iyo maxaa la jiray iyo isfahan iyo is-aamin koowaad bay u qaadatay innaguna waxaan u qaadanay in marka hore tegidda aan tagnay ay ahayd qodobka ku qornaa maxaa la yidhaahdaa communiquega kasoo baxay 2 usbuuc inaan tagno kabacdina shirweynihii uu ka dhaco magaalada Kismaayo oo ahayd meesha khalaafka uu ka dhacay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Jubbaland ay ku heshiinaysay islaamada dalka dhacay si ay ahaydna markii wasiirka arrimaha gudaha noo yimid markii aan wada dheer sameynay markii aan meelo badan ka fiirinay inagoo xaq iyo xaqaba dowladda federaalka ah haddaan nahay iyo dowlad goboleedka Jubbaland haddaan nahayba heshiiska Jubbaland inuusan naga beerdaroobin heshiiska Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Addis Ababa ka dhacay inuusan naga beerdaroobin anagoo raadinayno waa tahay Cabdullaahi ya waxaan isla qaadanay ama isla garanay in 3 beri la tago meesha la yiraahdo Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa dadkii muxuu ahaa rajabooyinka ahaa isla markaa shirka weynaa ee dibushiinta wuxuu Allah ta'ala marka dadka yaana si kala loo kala fasirinay waxyaalaha waa islaam laayir bay ahayd tiina waa islaam waa tahay Cabdullaahi fartaag waxaan ku weydiinayaa horta khilaafaadka inta badan waxa sheegi jiray waxay ahaayeen maamulka Jubba ee aad adigu madaxweyne ku-xigeenka ka ahayd waxaana muuqata in inta badan xitaa aad celiseen saraakiil ka tirsan dowladda dhexe ee waddanka Soomaaliya idaacadahana aad ka hadasheen oo aad waliba sheegteen inaanan tagaynin magaalada Muqdisho marka khilaafaadkaasi ma jiriyo maxaad u leedahay waaba soo bandhigteen خلافات يستعمل هذا كلين خلاص بس كلا تجمع لنا هو خلافين أما كلا بقى النجا الدولة الفدرال كأه صار هورين كوش هذا أنا حملنا أيوب أديسأل وش يقدم بي وناج موري وحماتنا ونحمرين مرة جيران وأحمد مدون ونحمري أفضل تكسعنا الدولة هذه هلا الملاحظ وصل سرسو هذه هلا يدرس وزارياش محل يجري وزيرة ملحونها شرير توس هنا الله هايين واضح خلاص إن ما نحمرين لكن السهواي الرواي واتاي Cabdullaahi waad sheegtay shirki waa tagnay shirki casro wiga shirki waa tagnay maxaa xamar kii Kismaayo dhiman iyo ma ahane kii hor ma ahane midka hal yimaado oo dowladda tiray markaan wada fadhiisanay wasiirka Cabdikariin iyo wasiirada la socdana waan saf garanay wax khalaaf oo hadda la sheegay oo dib loogu noqon waayahay Cabdiraxmaan aan siin doonaa laakiin hal arin aan ku weydiinaya waxaana uu yahay inta badan dowladda dhexe waad kala fadhishaan oo waxaad moodaa in xukuumadda qaarkeedna dowladdan aad la socotaan kuwana aadnan la soconin oo awaamirta qaybna aad wada qaadataan qaybna aadna wada qaadanin arrintaabaa laidinku eedayaay maxaad ka leedahay xaasha lillah dowladdanada dhexe waa dowladdanada dhexe madaxweynaha waa madaxweynaha nagi ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaaraha nagi gudoomiyaha baarlamaanka waa gudoomiyaha nagi baarlamaanka wasiirada waa wasiiradanadi saa shalay usoo dhaweynaad ka garan kartaa saa daraad usoo dhaweynaad ka daran kartaa kaliya waxa aan diidayna waxa weeye guriga albaabka laga soo galaaye yaan darishada laga soo galin baan isku haysan jirnay haddii la soo maro dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka Jubbaland haddii la soo maro waa kala sareynta iyo kala marqaashada waa naqaanaa disbliinkan waa ku fiicannahay wax dhibaato ma jiraan anagu waxaan diidanayn iyadoo nalala soo hadlin in la iska yimaado oo aan ka warhelay garoonka la jooga midaasaan aad u diidi jirna anagu waa tahay aad baad u mahadsan tahay khadka waa aad noogu jiraysaa waxaa magaalada Addis Ababa idinla tegay oo isaguna joogay la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo studio ila jooga Cabdiraxmaan heshiiska habka u dhacay haddaad wax kala socoto bal waxaad nooga tilmaantaa maadaama magaalada Muqdisho la yiri shirki ha lagu qabto Kismaayo ha lagu qabto la yiri bal noo kala macnaa sidee buu ahaa qodobkaas bismillahi raxmaan wa salaama ku-xigeenka fartaag
idinkana waan salaama Somali Channel Addis Ababa heshiiskii lagu gaaray jubbooyinkii iyo dowladda ay gaareen horta waxaa fiican in dadweynaha Soomaaliyeed si aragti fiican uga helaan arrintan jubbooyinka waxay soo martay wada dheer oo runtii xilli hore barnaamijkeeda uu soo bilowday sida la socotiin waxaa jira wax la yiraahdo Grand Stabilization Plan oo ah qorshihii IGAD ee xasilinta meelaha shabaabka laga bixiyo maamulada lagu sameynayay qorshahaas waxaa saxay madaxweynayaasha IGAD shir heer madaxweynaha lagu saxay dowladda Soomaaliya waxa uu saxay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka xilligaas jiray Sheekh Shariif Sheekh Axmed dowladdan cusub markay timid Soomaaliyeed go'aankeedu wuxuu ahaa qorshaha xasilinta ayada inay sameyso waxay diyaarisay qorshaha la yiraahdo Somali Stabilization Plan kaas ayayna u geysay IGAD waqti dheer ayuu qaatay runtii in la meel marsiyo markii dambena IGAD madaxweynayaasheedii iyo golaheeda wasiirada arrimaha dibadda intaba way ansixiyeen taas waxay ka dhalatay dowladda iyo maamulka Jubba soo fartaag sheegay isfaham darooyin ayaa markii hore jirtay oo process soo soconayo ayagana ay processka hore inay u soo wadeen meel fiican oo maray dhameystirna uu yahay dowladdan ay leedahay muxuma laakiin wixii waxaan dib u fiirinaynaa ku jiray waa inay dowladda hogaankii iyo qaabkii ay la wadeegtaa oo wax marka taariikh soo maray intaas oo jeer isku dayay Kismaayo la tagay meelo kala badan lagu shiray ma doonay taariikhdaas dheer inaan gadaal ugu noqdo iyo tafaasiisha qaar inaad muhiim loo dhex galana ma laakiin sabab markii la tagay saa la socda heshiisa lagu gaaray oo ah in shir dib u heshiisiin wajigiisa hor xamar lagu qabto wajigiisa dambana magaalada Kismaayo lagu qabto saa la socoto dad waxaa jira hogaamiyaasha hadda jira Axmed Madoobe iyo Fartaagi raggiisa kamid ah ka soo horjeeda oo ay khilaafsan oo deegaankana ka yimid qaarkood xamar ay joogan qaarkood wali duurkaasi ku jiraan qaar meelo kale ay joogan marka in aqliga waa keenaya in gogosha nabadeed nabadda Kismaayo looga hadlayo inay Kismaayo taalo sida aqliga sheegay saas waaye laakiin duruufta waxay keenaysaa maadaama wadankan uu kala go'an yahay dad badan aysan hadda meeshii joogin in meelaha qaarkood wax lagu bisleeyo oo gogolaha qaarkood la dhigo taasaa keenaysa marka in xamar marka hore dadka ay isugu yimaadaan waana ku mahadsan inay aqbaleen hadeertaan 2 November in xamar la isugu tago kabacdina marka gogosha nabadeed ee weyn Kismaayo la dhigo marka saddex maalmood kaliya ku filan Muqdisho hiri Muqdisho waxa laga hadlayo waxay tahay dadkii hore u yimaadeen kooxdan Kismaayo oo Axmedoobi iyo tageen meeshii iyo Fartaagiyo dad badan ay la kulmeen oo dadkii kala duwanaayay ka soo horjeeday haddana inay la kulmaan oo ay intay qaataba ha qaado saddex maal hadda waa sidee loo qorsheeyay laakiin ka badan kartaa inay dadkii arkaan ay la kulmaan dadkii isla socda Kismaayo gogoshii kale ee weyneed la fidiyo markaas laga hadlo processkii sidii dadkii loo qaybsan lahaa maaragtay dib u heshiin horta kow u dhici lahayd labana awoodda maamulka dadka ugu wada qaybgal lahaayeen dadkuna ayagoo wada jira oo dowladoodana raacsan ay wax wada dhisa lahaayeen waa ujeedada meesha dowladdu Soomaaliya door intel ag bay ku leedahay kaba soo qaado kale waxa la yiri maamulka Jubba hadda marka la dhisayo saddex hogaamiye ku xigeen baa loo sameeyaa baa la yiri saddexda hogaamiye ku xigeen ma dowladda la imaanaysa oo soo magacaabaysa mise hogaamiyaha ayaa saddexdiisa hogaamiye ku xigeen isagoo magacaabanaya miri dowladdan waxay baas galeysay local government act wax la yiraahdo dowladda Soomaaliyeed baarlamaanka ay ka ansixisay madaxweynaha oo saxay markii dambe kaas wuxuu sheegay dadku deegaanka ay is doortaan ay dowladdu aysan waxba u magacaabinin meelaha duruufo gooniye ka jiraan maahane waxaan ku heshiinay waxay ahayd heshiiskii Addis Ababa ku qornaa in reer Jubba ayaga laakiin ayaga wada tashi la sameynaya dowladda mar walba sababtoo dowladda waxaa xil ka saaran yahay inay xaqiijiso waxa in loo dhan yahay dadkii deegaankani si sax ah in loo wada matalo way kala duwan yihiin xaqiijintaas dowladda mas'uuliyadda ay saaran tahay laakiin dadku say inay is doortaan ayaga maamulkooda sameystaan oo wax ayaga u yahay way kala duwan tahay marka la yiraahdo hogaamiye iyo saddex hogaamiye ku xigeen iyo marka la yiraahdo gudoomiyaasha gobolada hal la magacaabo gudoomiyaasha gobolada waa ognahay Axmed Madoobe waa magacaaba laakiin ku xigeenadiisa yaa awood u leh inuu magacaabo Addis Ababa heshiiskeeda way ku qoran tahay xasaadad akhrisay ina maanta isweydiino ma cidda magacaabaysana way caddahay waxaa magacaabay hogaamiyaha laakiin isagoo la tashanaya dowladda Soomaaliya meeshan hal ujeediyay ka leedahay ku horta dagaal sokeey inuu ka dhicin labo
dadku waxa inay u dhan yihiin dad walbana ay helaan xuquuqdooda inay xaqiijiso taasaa keenaysa mar walba ayada lala tashado oo mar walba ayada ay marjici noqoto loo soo noqonayay laakiin dadku in ayaga laga rabaa deegaanka inay exercise gareeyaan awoodooda iyo maamulkooda waa tahay cabdullaahi aad baad u mahadsan tahay weli khadka ayaad noogu jirtaa waxaan la soconnaa in bare aadan shire bare hiiraale ciidamo uu wato in ay ku sugan yihiin dhinaca iyo goobweyn iyo meelo kale sida la sheegay qaab caynkee ah ayaa la doonayaa in bare lagu keeno oo ciidamadiisana maaragtay lagu keeno magaalada Kismaayo tahay su-aal bad ku jirto fiican weeye cabdiraxmaan cabdishakuur aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa isu doona cabdishakuur shirkii dib u heshiisiinta ahaa ee ka dhacay cabdisaawan rabbi wax buna ka qaatay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaa inuu meesha xogjoog ka yahay arrimaha aan ka wada hadlayno dowladda Soomaaliya ama aan ka wada hadalnay waxa weeye ciidamada duleedka ku sugan magaalada Kismaayo duleedkeeda ku sugan goobooyin meesha la yidhaahdo kor casharaad ku sugan qaabkii ay ugu soo noqon lahaayeen magaalada Kismaayo waa halkanaga ku jirtay saad la socotaan maanta ciidanku waa ciidankii deegaanka ahaa waa ciidanka Jubbaland waa ciidankii qaranka Soomaaliya waa ciidankii u dhashay gobolladan waa ciidan mataqaanaa qaab siyaasi ah siyaasadeed oo ku kala baxay waxaana inooga faa'iidaystaa caawa maqalka la maqlayo caawa iyo ama dhegeysanayo meel kasta laga dhegeysanayo inay uga faa'iidaysto waxyaalaha badan la isku balbaayo horta wax dagaal oo qabiil ah ama qabyaalad ah oo dalka jubbooyinka ka tagan ma jiraan waa dagaal siyaasadeed yar buu ahaa mar haddii kii siyaasadeed uu dagaalka qabiil laga baxay shaqadeed ahayn dagaalka siyaasadeed wixii ku yimid horta ciidanka dhan u kala baxeen si kastaba haatee haddii heshiis la qaatay ciidamada ay ciidamadanaga ahaayeen waxaan dhinac kasta ama haddaan nahay Jubbaland ama haddaan nahay federaalka iyo caalamka beesha caalamkaba waxaan isku dhagarjabinaynaa oo mataqaanaa aan muxuu ahaa si fiican arkaan indhaha lagu qabano siday ku soo xaroonayeen ciidankaas weerarada saddex marmarayo oo dhacdaha qaarkood aan ka maqlahay saaka iyo mararka qaarkood aan maqlayay ciidan isu soo dhiibayo la dhahayo iyo kuwa kale wax kala sheegayo iyo kuwa joogo gaar leh iyo way iska jirjiraan laakiin ciidankaas waa ciidankanagi oo marka hore la qalday hadda wala in qalabka laga saaro soo dhiibis iyo magaciisa midna maahane ciidanku waa ciidankanagi inay dib loogu soo xaroodaan baan boloska saalaynaa iyo ciidankiis waxaana qaadanay waxa la yidhaahdo saddex guddi in loo sameeyo ciidankaas guddi dowladda federaalka ka socdo guddi Jubbaland ka socdo iyo guddi beesha caalamka ka socdo IGAD iyo AMISOM iyo beesha caalamka iskugu jiraan guddigaas guddi farsamo noqon doona guddigaas farsamo ayaa ka shaqayn doona insha Allah siday ku soo xaroon doonaan iyo qaabka ku xaroon doonaan iyo mataqaanaa meesha ku xaroon doonaan iyo sidii mataqaanaa u imaan doonaanba guddigaas baa ka shaqayn doona haddii la yidhaahdo wararka xukunkooda saddex marayo oo dadka lagu kala fogeynayo oo dadkii mataqaanaa marka horete wala shirka ahaa la qalday lagu sii kala fogeynayo taas caawa horta meesha ka baxdaan leenahay insha Allahu tacaala ciidankaas waa la soo xareynayaa waa tahay Cabdullaahi ciidan xagga ninkaan ciidan baa loo kala saaraya siyaasiyiinta ku dhex jirta ciidanka insha Allahu AMISOMna waa ka hadalay IGADna waa ka hadalay dowladda federaalkana waa ka hadalay ayagoo si nabad ah ayay ku tegi doonaan meeshii mataqaanaa ay ka yimaadeen marka hore ay ka yimaadeen dalka u dhasheen rawe dalka u dhasheen laakiin fidna ka dhalatay imaansi ay yimaadeen fidna kale tacarada insha Allah si fidna ay soo sii dhaafin waxay ku noqon doonaan dowladda laga talgalay haddii la yiraahdo ciidanku waa ciidanka Jubbaland waa tahay adigu waxaad doonaysaan waa tahay adigu waxaad doonaysaan baa la yiri ciidamada bare hiiraale in la geeyo doolow iyo gada iyo meelahaas oo inay Kismaayo imaanin baa doonaysaan baa la yiri marka arrintaasi ma dhaba horta wax badan baa ka qaldan dadka ama saxaafada ka qaldan ciidanku ciidanka bare hiiraale maahan waa ciidanka Jubbaland bare waa yimid halkaan buu yimid ciidanka nabad buu deganaa ciidanka laba meelood baa lasoo kala tababaray qaar dowlad baa kusoo tababarnay qaarna kamaando dowlad baa kusoo tababarnay qaarna raaskaan booliga ka yimaadeen ciidanku waa ciidanka Jubbaland ciidan bare hiiraale lagu guuleeyo meesha ma degano ciidamada Soomaaliyeed isku dhafan weeye ciidanka bare hiiraale lama dhigi kara ciidanka Soomaaliyeed meesha degan baa la dhahayaa taas horta dadka ay sheegnaa jecelnahay insha Allah tacaala bare hiiraale dowladda ku yimid haddii la yiraahdo haatan uu ka dhaxaya oo meesha laga talgalay ama dowladda Soomaaliya geento taa meel geento taa ciidamada waa ciidamada Jubbaland dib baa Jubbaland maana Kismaayo maana dowladda lama wado
أنا لما يقولوا بتكلم حيشيء يعني الدول اللي فيها كوفيمان ده كسمايو أسوي لما يقولوا ما ينام دراية إيه عن الدول اللي جينا أنا عارف جينا ما عن إيه كوفيمان ده كسمايو لكن على كثار الله سياسة دي ما تحدث شيء يعينك على كثار يا وتهي ان بل هذا خدك كجر ان waxaan rabaa Cabdiraxmaan hal inaan ku weydiiyo shirka ka dhacaya magaalada maadaama aad wax badan aad isha ku haysay arintan aad ka qayb qaadatay Jubba iyo dawladda iyo khilaaf soo u dhici lahayn aad qayb weyn ka qaadatay bal hadee see looga soo qayb galaya magaalada Muqdisho shirkeeda Barahiirale iyo nimankii madaxweynayaasha sheegtay oo beelaha kala ahaa iyo ragii kale oo ma imaanayaan oo soo hor fariisanayaan Axmed Madoobe iyo raggaasi maadaama ay dagaal ay macnaha markii hore ku kala tageen xasan fiiri heshiiska sabab lagu gaaray wuxuu sheegay dib heshiisiin wuxuu sheegayaa ciidanka in laga dhigo ciidan qaran la isdhex geliyo wuxuu sheegayaa awoodda iyo maamulka in la qaybsado dadkana ay u dhamaadaan wuxuu sheegayaa kaabayaasha dhaqaale meesha si ku meel gaar ah maamulka inuu haayo ka bacda 6 bilood gudahood dawladda ku wareejiyo awooda telefishinkan ugama doodi karno ciidanka see la isku dhex gelinayaa xagee kuwa xagga jooga la geynaya kuwa kale inta la keenay laakiin mabaadida guud ee meesha taala waa intaas dawladda waxaan xil ka saaran yahay laba arrin dawladda xil ka saaran yahay iyada inay xaqiijiso dadku inay awoodda meesha u dhamaadaan fiiri meeshan dibooyinka leeyahay Soomaaliya meelaha ugu waxay aad waliga lahayd ugu dhibka badan ugu mashaakilka badan leh waxa keenaya waxa qabiilada Soomaalida oo dhan intooda badan meesha degan meel dagaalina waligeed ahayd kaliya hadda intaas maaha meesha waxa jiro local actors dad oo kala duwan oo local ah jiro waxa jiro regional actors jiro oo gobolka ah international jiro meel marka iska sahlan oo kaalay ku soo xalli kala tuur arinteeda si hal loo dhahayo ma dawladdu wuxuu xil ka saaran yahay dadka inay dibashiin u sameeyso kuwii magaalada ka soo baxay iyo kuwii ku jira inta inay dibashiin u sameeyso markay dibashiin u sameeyso inay formula lagu heshiiyo awoodda lagu qaybsado dadkana u sinaadaan si dadka hadda hoggaanka hayane ay sharciyad iyo legitimacy dadkooda uga helaan dadkooda heshiis ay wala ahna maamulkii ay u hirgalo saasna marka ay ku dhamaato howlaha kale oo technicalka oo in ciidan qaran laga dhigo ciidamada dhex geliyo dawladda marka iyada waxa laga rabaa mas'uuliyadda ka saaran tahay inay dadkan isku wada heshiisiiso siyaasiyiintooda isku keento ciidankooda isku darto siyaasiyiinta kuwii maaragtay hadda la arkay inay processka aysan qayb ka noqon karin sidii u maaray dawladdu waa weyn tahay dawladdu ma aha kaliya dadka siyaasiyiinta laakiin dawladda laftirkeeda waxaa la leeyahay gacan ku gambad ayayba ka tahayba dhinacan jubbooyinka waxaana muuqata in cadaadis badan oo dhinaca Jubba uga imaanayo oo aad ogtahay magaalada Kismaayo maanta macnaha in ay jiraan khilaafaad oo ragga qaarkoodna ay ku dhiiri kari maamulka Jubba wuxuu ku doodayaa inuu Muqdisho waxa la joogay 3 maalmood iyo wax lamida inay yihiin oo Maxamedoobe dad inuu arkayo oo maaragtay waxaas kaliya lagu doodaya marka arintaasi ma noqon kartaa mid xalka laga rabo gobolada Jubbooyinka mid qayb weyn ka qaadanaysa halkii laga rabo gobolada Jubbooyinka xasan waa dad u maleysay inay shir xamar loo qabto ama mid kale loo qabto ku dhamaanayo ma waxaan ka hadlaynaa in wadada saxda la qaado dawladdu waa dawladda Soomaaliyeed dabcan dawladdu waxay u duwan tahay unugyada kale ee xooga kale xogta ay helaysay macluumaadka ay ogtahay iyo dadka sidii kale yihiin dadka fiir waa qabaa'il wali waa isdirrisiin Soomaalida isma aaminin ma heshiinin ajandayaal kale gobolka ku jiro kuwa international ku jiro dawladdu waxaas oo dhan ay xirisaa waajib ka saaran yahay kuma dhahayna dawladdu hadeertaan beri dambe waxaan kala xalinaysaa laakiin dawladdu hal mid ah u muhiimsan in ku wadada saxda ah la maro dadkaana inay heshiiyaan inayna awoodda u qaybsadaan waxa la isku hayo waa resource-kii power-ka wax meesha yaal dadku si kale iskuma nacba qabiilana iskuma haystaan dad u fasiraya markii magaalo ka madax banaana jiro la tagay in dadkan loo simo maamulka iyo awoodda ayagoo heshiisan ay wada dhistaan maamulkooda meelna uga soo wada jeestaan cadawgan ayaga dhan dadka aanan kala reebayn shabaabka ah dibashiina meesha ka dhaltaa dawladdu waajib ka saaran yahay wada kasta dawladdu u mareysana way ku mareysaa dariiqo kasta awooddu power badan ku lahayn maamulka Axmed Maxamed Islaam aysan awood badan ku lahayn awooddeedina gacanta ay ku hayaan magaalada Kismaayo lana doonayo in maamul loo wada dhan yahay laga sameeyo maxaa loo heli waayay
haddayna ayagu ogoleen magaalada muqdisho in shirku lagu dhammaystiro kismaayona ay leeyihiin sida hadda rag aan la hadlay qaarkood ay leeyihiin walwal iyo xaggaas baan ka qabnay in wixii cadaalad u dhacaan dowladdu awood intee la-eg bay ku yeelan kartaa inay xakamayso oo kalsoonida dadka kale ee kasoo horjeeda Axmed Madoobe inay kasbato intee la-eg bay muhiimadda dowladdu dadku inay awood ku yeelato ma xasano taa ka qaldanba taas way dowladdu dadku inay awood ku yeelatay qasabta ma dowladdu dadku waa inay ixtiraamaan sharciyadana u hoggaansamaan waay taasna waxay ku kasban kartaa dadka inay isku soo dhaweyso daweysiin dhex dhigto isku dayda inay kasbato maaragtay quluubtooda iyo maaragtay aqligooda ay kasbato taasaa keenaysana dadkan in la heshiisiiyo processkan waqti dheer uu soo qaatay meelo badan uu soo maray waa la socotaa geedo badan uu soo istaagay arrin sahlan ma dowladda marka hadda muhiimadeeda waxay tahay inay shirka xamar lagu qabtane dadka iyo maamulka hadda Jubba oo ku meel gaarka oo la soo heshiiyey la heshiisiiyo xaqiijisana oo ku celinaya markasta in dadkaanu ay u dhan yihiin waxaan ay ka wada muuqdaan iska wada dhaxarkaan haddii loo dhammaan heshiisiina ay timaado mas'uuliyaddaas waa mas'uuliyad dowladda saaran waana ku heshiinay hogaamiyaasha Jubba in dadku wax ay u dhamaadaan waana ka gaari kartaa luqadda hadda in dadka oo ka soo wada qayb galiyaan oo ay ogoliin xataa inay ciidanka keenaan oo hadda waa runtii sida Addis Ababa loo tagay dowladda iyo dadka Jubbooyinka waa heshiiyeen waxaan rabnaa marka in la iska yareeyo dadka iyo taliye ciidan mise abaanduulaha ciidamada goortii laga soo celiyay soo markii Addis Ababa ka dambeysay ma ahayn abaanduulaha ciidamada soo celintiisa soo celinaantiisa waa arrin AMISOM dhexdeeda ah protocol iyo procedure AMISOM dhexdeeda ah maxaa AMISOM ka galay Cabdiraxmaan dowladda may waxa soo celiyo waa AMISOM maamul ku meel gaar soo ma celin waxa soo celiyo protocol AMISOM dhexdeeda iyo procedure AMISOM u yaala wax laga hadlayo taasna waa la sixi doonaa dhib male waxaan way iska imaan doontaa waqtigeeda laakiin waxaan kala hadlayaa waxay tahay dowladdu waxa mas'uuliyad ka saaran tahay xasan dadkuna inay heshiiyaan dagaal sokeeye dhicin awoodan loo sinaado maamulkana la qaybsado dadka ayadooda jiran ee shabaab ka soo horjeestaan ciidanka meesha joogan ciidan qaran laga dhigo oo ciidan maleeshiyaad laga saaro dowladdu markaas ay ayadu keeni kartaa dowladnimadii Soomaaliyeed meesha ay ka xaqiijin kartaa hadafkeenana waa intaas dowladda waa tahay waxaan aad baad u mahadsan tahay kulliba waqti badan baad khadka ku jirtay Cabdullaahi su'aal baan ku weydiinayaa oo ah adinka waa horta abaanduulaha ciidamada ee la soo celiyay ma adinka ayaa maaragtay xaggiina ayay ka timid mise ciidamada Kenya iyo ciidamada Sierra Leone ee jooga magaalada Kismaayo ayaa sabab u ahaa inay soo celiyaan aad baa umahadsan tahay su-aal fiican weeye oo dadweynaha Soomaaliyeed in loo faahfaahiyo u baahan Cabdiraxmaan Cabdishakuur walaalkeeyaaba aad uga jawaabay anigoo u dhamaystirayaa xilligii uu imaanayay Jenaraal Cabdirasaaq madaxweynaha Jubbaland wuxuu ku maqnaa Nairobi halkaana anaa sii joogay lama hadlin madaxweynaha oo lama wargelinin anigana lama soo wargelin maamulka halkaas sii joognana lama wargelinin waxaan ka waralnay oo keliya inuu generaalku joogo asaga iyo kala jaan oo AMISOM inay joogaan meesha la yiraahdo garoonka Kismaayo socodkiisa iyo wuxuu ku socday iyo meesha uu socdayna hadii anagu markii hore loo sheegin hadii wax anaga shaqo ku lahayn ma ahayn AMISOM wala socotay AMISOM waa u yimid hadda anaga noo qosay safarkan sala waa farsamada soo soo Cabdiraxmaan ku sheegay waa haddaad ku raacday haddaad ku raacday hal su'aal oo kale ku weydiinaya haddaad ku raacday hal su'aal oo kale ku weydiinaya waxaa jiray madaxweyneyaal sameysmay markii aad ku dhawaaqdeen xilka madaxweynenimada Jubbaland ayagiina waxaad moodaa in qaarkood duurka ay ku jiraan waad sheegtay ma ogoshihiin in dowladdu magaalada Muqdisho ay isu kiin soo hor fariisiso oo aad wada hadashaan oo aad macnaha powerka oo macnaha wada qaybsataan maadaama ay ciidamo hubeysanaystaan khilaafaadkuna uu iyaga kala dhaxay aad u mahadsan tahay arrintaas laftirkeedu waa arrin u baahan weeye in si fiican dadweynaha loogu faahfaahiyo barnaamijkan Jubbaland wuxuu soo socday muddo 4 sano ah wuxuu soo bilowday xilligii uu madaxweynaha ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ninkii hadda qadka ku jiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur laftirkiisu wasiir uu ahaa soo bilowday 2009 markii mashruucan uu bilowday wax dhow ma ahayn wuxuu ku bilowday in dhulka laga kiciyo al-shabaab markii al-shabaab laga kiciyo loo gudbo maamul waddanaysa dagaalkii intii lagu soo jiray ugu dambeyn magaalada Kismaayo waxaa la yimid October sanadkii hore markii laba ahayd ka bacdi haddii magaalada Kismaayo ugu weyneed al-shabaabka la qabtay
gobolka Gaboona magaalada ugu muhiimsan ayaa qabtay magaalada kale oo Jubbada Hoose la qabtay waxaa la go'aansaday inay dadkii soo imaadaan ay samaystaan maamul ardooyinka waxay fadhiyeen muddo 6 bilood ah intaana la dooran madaxweynaha taa waa ogahay Cabdullaahi waqtigaan nooga dhameeyay Cabdullaahi markii ahayd doorashada ay dhacday ayaa 3 nin oo Baarley iyo ninka la yiraahdo Baarley iyo Baasto iyo Buraale waxay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Buraale wuxuu ka soo degay meesha la yiraahdo dekada meel u dhow oo la yiraahdo Kabooro oo doonbu ku yimid isla maalintaas buu hal mar ku dhawaaqay madaxweynaha yihiin waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheegayaa oo la marin haynayo doorashada Afrika soo socday oo inta aragtay waa soo maray oo wixii aragtay shaqada laga soo dagaalamay iyo maalin 3 nin oo diyaarad ku timid iyo nin doonta ku yimid inay madaxweynaha baan yiraahdaan haddii taas inay dalkeeda wad garanaysaan insha Allah taala khalaaf baan dhacay marka hadduu khalaaf dhacay sidii loo dagaalay waxaan ku jirnay weeyo waxaan isagoo tagnay ahayd waxaan Nairobi tagnay ahayd waxaan Xamar tagnay ahayd haddana Xamar baan ku noqon doonaa insha Allah taala ayuu dadweynaha la socdo ama dadka wax sheegaya iyo qolooyinka la socdo haddii imaadaan waan qaadanaynaa insha Allah dadka inay ka mid yihiin kama weylin wala fadhiisanaa wadanaynaa laakiin waxay sheeganayaan inay wax ahayn carabka warka ayaanu arkaynaa intaas waa